waxa aan kuu barbaariyeyba waa arrinkan. Ibnu Taymiya ayaa hooyadii u diray fariin uu kaga cudurdaaranayo maqnaanshiyaha uu ka maqan yahay maalmo dhowra iyo joogidiisa Masar faafinta diinta iyo dacwada darteed. Markii ay fariintii gaadhay hooyadii ayay ugu soo warcelisay: wiilkaygii aan jeclaa ee aan raaliga ka ahaayow, salaan sare, barako, naxariis, dembi dhaaf iyo raali ahaansho korkaaga ha ahaato Axmedow. Wallaahi arrinkan ayaan kuu barbaariyey, u adeegida islaamka iyo diintana aan kuu nadiray, shareecada islaamka iyo diintana aan kuu baray. Hamoodin wiilkaygow dhawaanshiyahaaga inaan ka doorbidayo u adeegidaada islaamka iyo muslimiinta, bal raali ahaanshahayga ugu sareeya waa inta aad u adeegto islaamka iyo muslimiinta. Ogow Axmedow, kuma weydiin doono barito alla weyne xaggiisa fogaanshiyahaaga xaggayga ah, sababtoo ah waa aan ka warqabaa sababta iyo halka aad ku maqan tahay. Laakiin ogow Axmedow, alla hortiisa inaan kugu weydiin doono waa haddii aad ka gaawiso u adeegida diinta iyo inta raacday ee muslimiinta ah. Rabbi ha kaa raali noqdo, hortaadana ha nuuriyo, dembigaagana ha kaa dado, allahna nagu wada kulmiya carshiga eebba hoostiisa maalin har kale uusan jirin harkiisa mooye. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.